shabaab iyo waxa soo haray daacish iyo inta Allah maanta su'aal baridi weydiinayna billahi alaykum midin tirsayin inta disheen tirahan kaliya mu taqaanaan inta ruuxu disheen waxaad ku disheen ma garanaysaan ma xaqba ma baadil ba ma mudnaayeen inay dhintaan xadiis bay daliishadaan waxay yiraahdaan thumma la yub'athuna ala niyyatihim Aisha waxay tiri nabiga wuxuu sheegay salawaatullaahi wa salaamu alayhi ummad soo socoto oo meel bannaan oo Maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa la isla rogi doonaa kaasa waxay tiri rasuulallah oo kuwaas masaakiinta oo aan dagaalka ku jirin oo meesha lagu leeyay xalkooda noqonaya waa la rogayaa buu yiri niyadoodana lagu soo saari doonaa shabaabku markay dadka laynayaan tarabta u laynayaan xadiiskaasi daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacday xadiisku ka hadli maayo in dad bini aadan oo jira iyagu musiibo noqdaan oo marka intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yiraahdaan ilaahu intaasan ku soo dilay adigu kala saara kii fiicnaa kii xumaan adigu ma fiicanta sida u disho xagaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu laynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan oo samaynaysaan ummadda cadawgeeda u nugleeynaysan bikulli ma fil amri wa inta haddaydan cadawga la shaqaysanaynin sidatan ummad looguma heeliyo kuwa la soo qalday aaminsan wuxuuma ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajino war qofkaad wax u hagaajinaysa hadaad disho maxaad hagaajisay billahi alayk yaad xogaajis aqligu inta ma garan waay alaysa minkum rajulun rashid wan wax kala garanaydu kuma jira miya maskaxda xageebad la aadeen kuwa culimada sheeganaya ee culimo usuuga ee zuurka iyo buutaanka diinta uga been sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada waxaad ilmaha ku qaldaysaan ka fiirsada waxiidan ubadkiina u dirteen ilma Soomaaliyeed ha u dirina ilmaha aad baadi iyo zakada u qaadanaysaan waxa sujihaadka nabiga ma aha sallallahu wa sallam alayhi su'aal kana idin weydiinayna intaad aqoontaysan midin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabihi masruufayay aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midin tirsan yihiin intaad labada isugu darsadeen midin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel aad gablan ka dhigteen midin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midin tirsan yihiin billahi alaykum su'aal kale maxaa guulod ka gaadheen maxaad xaqiijiseen waxa ummadda ay ku naaloon karto ka dhaxaya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo soo noqday caayidka waa maxay aan ku wada faanoon idinka mid noqonee noo sheegay guusha mise waxaad doonaysaan guul darro iyo geeri kaliya ummadda dhan ka wada shaqayso tan maxaa ku weeliya kuwa idinka dhexdiina aad iska disheen maxaad ku disheen markay idin la jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeen maxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil kaliya in loo shaqeeyo aba wax loo dilo just dil baan wax u dilayaa waxaan dirayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhibayaa maxkamadii waa isaga ma tukada hadduu doono qaadku cunaa ciyaar suuqnimo kale ku jira xoogaa baan loo dhibayaa waxa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo laa baa la leeyahay waxa xageebay diin ilaahay kaga taala waxaas haddii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kasto xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinaya mis weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeyo oo wadanka joogtay iyo inta fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeyo oo timid oo ku timid idinka fadligiina iyo shaqadiina xun mis weydiiseen inta qaxday mis weydiiseen intaas inta ka gaalowday mis weydiiseen inta ka inxiraaftay mis weydiiseen inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdaa saxarayaasha carar iyagoo idinka jira inta reera kala loo mis weydiiseen idinka daraadin masawirka laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan mis weydiiseen masawirka bidana faacaya haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marayo siyaasaddu taas maaha wadankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-ga kala ah ay ku jiraan gala dariiqeeda soo mara qabaa'ilkiina soo dhex mara ilaa qoriga ma ogi
fikir qaldan waa qabi kartaan ummadda ay sixi doonta kuwa kale qaldan waa jiraan laakiin waa ku dilayaa هذه فرعونية بعينها قرنيسا فرعون بامحولها وإذن دليا قرطان إذا كقوين يا مربع لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين آمنتم له قبل أن أذر لكم ما واحد موسى ونذير يدمن هذه فرعونية إسلام ما غليا وحنا كوب باقينا إلهنا كباغدان ummadaas aad indhaheedii rideen indhaha la idinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sida aad u geysateen baa dadkan ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan wixii aad badeen oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda ah oo la qalday oo idinka ah haddaad toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaan oo meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan لكن سيدا هدا تكون جرتان سيدين بحنيسا ماها الدنيا آخره waxaa doonaysan si aad ku gaaraysaan maaha berina waxa la arki doona shabaab iyo gaalays wata oo ka tarjumaya wadanka gabi ahaantiisa in la qaato ummadda waxa la gudbaan marka ina waxa loo dhaafin ummadda laga qabto Sheikh Abdul Nasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin ma tukata salaada ma taqaana wax ma qori kartaa ummadda intaas laga dagaalamaya qandaraas kana cid kale laga soo qaatay sadarteed hadii lagu iman doono hadda dagaalka siigal cidii gaarab iyo gaashaan kugu noqon karta si kaasho maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafano nimanka xad ha loo yeero cadow ka daran ummadda Soomaaliyeed ma dhex joogo